بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكني وتيفيga caalamiga Universal barnaamijkiisa faaqidaada ciyaaraha waxaan idinku haynaa barnaamij runtii kala duwan oo aad u xiiso badan caawa waqooyiga magaalada London waxa ka dhisan school lagu baro ciyaaraha kubadda cagta dhalinyarada da'doodu aad u yar tahay iskuulkaas oo la yiraahdo Family Football School ama hadii la soo gaabiyo FFS la yiraahdo waxaa lagu tababaraa caruurta da'doodu ay ka bilaabato 4 sano waxaana macallin u ah macallin Mansoor iyo assistant manager oo ah Mr. Cabdikariin Aadam dhanka waalidiinta waxa xubin buuxda ka ah Fawsiya Sheekh Cali iyo Cabdirasaaq Sheekh Cali hadaba cameramanka faqadada ciyaaraha Cali Naaji ayaa wuxuu socdaal gaaban ku tagay waqooyiga magaalada London isagoo la kulmay Family Football School qaabkay wax u sameeyaan qaabka loo tababaro bal daawasho wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق منصور الله وحنا هاي كوشكو كبدا عقد اي كوحدة يريراد اركي دونتين تريننج سيشن كان مانتا اورجنايز غرين دونو تريننج سيشن كان سمين دونو waxa loogu talagalay ciyaalka ka yar 5 jir waxa la dhahaa xanaanada kubada cagta waxa u diyaarinayaa si ay u noqdaan dad kubada yaqaan reedina u noqdaan ay u diyaar garowaan markay kooxo ka qayb gali doonaan age of 6 jirka markay koox u tagaan fikradda ka dambaysa waxa waay in ciyaalka la baro coordinationka dhaqdhaqaaqa jirkooda isku xirnaanta xubnahooda iyo awareness waxa la dhaho ka warhaynta banooniga meel ka soo socdo meel ka sii socdo kulligeen waa ognahay waana ku shaqeynaa shapes box marka riixaysid waa qaaday waa riixay laakiin wax circle marka riixaysid wuu taraaraxaa circle kana geeska ka riixda ma geeska kale u dhaqaaqa box marka taa waa inaa wareejisaa triangle marka tahay mise pyramid shape kala ooga shaqeynaysaa dhibaatada banooniga waxa waay waa circle-na wuxuu la shaqeeyaa force markuu la shaqeynaa marka ciyaalku waxay u baahan inay ka war hayaan si loo riixo mise loo dhaqaajiyo banooni wax circle so fikradda ka dambaysa xanaanada kubadda cagta waxa waay inay bartaan dhaqdhaqaaqa jirkooda isku xirnaanta xubnahooda waxay dhahaan coordination iyo awareness ka warhaynta waxa ugu important garaysan waxa ugu fiican ay ka qaadan doonaan markay ka baxaan trainingka waxa waay jaceelka banooniga ciyaalkan fikradda ka dambaysa programkan waxa waay ciyaalkan inay haystaan jaceelku Messi u haysto banooniga ayagii Messi jaceelka banooniga ka sameeyeen soo jaceelan ku isku dayana ku abuuro ee jaceelkaasna markay 6 jir qaataan ee kooxa kale la tagaan ay dunidooda sii wataan aad uma santiin waa arki doontii waxa dhici doona maanta ma sanidin barnaamijkan waxaan bilawnay 2 sano ku dhawaad ka hor waxaan u bilawnay in ilmaha yararka ah oo under 5 years ka ah lagu baro footballka iyo isku xirka ilmaha waana arin aad loogu baahan yahay
ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ilmahooda isu keensadaan ee barnaamijyo noocan oo kala sameeyaan baarantiga isku yimaadaan horumarinta ilmahooda xirfadeenta waxaasoo dhan waa arrimo loo baahan yahay marka annagana dad hore ayaan uga daysanay annagana waxaan rajeynaynaa dadka kale oo naga dambeeyay inay saas kale nooga daysadaan oo ay samaystaan inay ilmahooda gurub isugu keensadaan wada ciyaarsiistaan waxaa kaloo xataa jirto oo ilmaha aan u wada sameynaa isweyn buula u sameynaa oo hal meel aan ku wada sameynaa marka dadka kale oo Soomaaliyeed ilmaha inta ay yaryihiin waxa fiican inay ka shaqeeyaan inay dhisaan isku keenaan wada jirkooda wada qabadkooda marka waxaan rajeynaynaa macallin Mansuur oo ah ninkii hawshan abaabulay oo hadda naga tagayo marka waxaan leenahay macallin Mansuur thank you inta aan soo gaarsiiyay anagana waxaan rajeynaynaa inaad sidaas si lamid ah u sii wadno aad ayaa u mahadsantihiin idinka oo ah Universal TV fursadda aan siideen inaad barnaamijka aan ugu saacidiin special saaxiibka Cabdinaasir Soola aad ayaa u mahadsantahay wabillahi tawfiiq alaykum warahmatullahi wabarakatuh anigoo ah abti oo ka mid wadanka Jarmalka Cabdirasaaq Ali Axmed oo ku magac dheer Deeqo waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay oo ii suurta gashay in aan maartay gabartan abti oo ah cunugeeda inuu maanta banooni ku dheelaayo oo si aan u jeedo koox rasmi ah oo yani Soomaalida waxa kaliya ugu weyn ay tahay in kulanka walaaltinimada afka inaan ilaabin diinta la ilaabin iyadoo anaga aan rajeynayno wadankeena inay maartay wax mustaqbal weyn u noqon doonto waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa kooxda maanta meesha naga marti qaaday ciyaartan sharaftan aan arki doono السلام عليكم ورحمة الله. waxaan maanta halkan isugu imaanay ciyaalkeena yaryar ee halkan ku ciyaarayaan aad ayaan ugu faraxsanahay in ilmaha wax activity ay helaan sportska wuxuu caawiyaa ciyaalka waxyaabaha dhibaatada badan iyo ka hortaga hore umaanan haysan alxamdulillah hadda waan helnay waxa mahad Ilaahay baa leh midda ugu horeyso ka sakowna ragga isku shaqaliyo soo qaban qaabiyay aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waana ku faraxsanahay waxaan rajeynaynaa guulo intaas ka badan inay sii gaaraan waxaan si gaar ah ugu sii faraxsanahay oo na siiyay fursadan qaaliga ah Universal TV oo aan la'aanteeda aanan heli lahayn inaan u helno Jaanis inay la socodsiino feelingkeen waxaan dareemayno السلام عليكم Hadiya jeer isuri
take it from your front. Well done.
Pass the ball, Mohammed. Yes, go on. Yes, go on. Come on, fast. Come on, Mohammed. Press. Mohammed, pass, Fadil. Pass to Tariq. Fadil, pass. Fad, come on, Ali, come on. Nice. Yes, carry on. Come on, Mohammed, come on. Mohammed. It's yours. Come on, press. Play. Carry on. Fad. Come on, Mohammed. maanta halkan waxaa isugu nimi ciyaalka yaryar oo ciyaaraya kubadda cagta halkaana waxaan u nimi inaanu sibood garayno maadaama ciyaalkeena ay yihiin waalidiin badan baa ka soo qayb galay aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay ciyaartii halkan ka dhacday waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa macalinka ciyaalka tababara inkastoo uu tegayo haddana waxaan u sii baahannahay macalin noo sii bedela marka insha Allah waa filaynaa mid kale oo loo bedela inaanu helo inkastoo aanu aad ugu baahannahay inuu noo sii joogo laakiin waqtiga ayaa na siin waayey marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciyaarta maanta meesha ka dhacday magacaygu waa Faadumo Aadan Xirsi maybe another time inaan haddana ka soo qayb galno waa kaasaa maca salaama I'm Tariq Mohammed Adinor. My name's Mohammed and I'm playing football. I like to play football. How many goals do you have done? 4. Bismillahir Rahmanir Rahim. Annaga waalidiintii ilmaha meesha banooniga ku ciyaaraya waalidiintoodii waa ku faraxsanahay. Kunkiyo boqolkii waa ku faraxsanahay waxsan iyo Allah nooga keenay ilmaha yaryarka. Training hadda waa dhameynay. Exercise-da ka sameeyay waxa kamid ahaa coordination-ka oo waxaan sameeynay banooniga kor u tuur iyo qabsashada banooniga kor loo tuuray waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa gacmaha indhahaaga iyo inaad xisaabiso culayska banooniga ku soo socdo saa dhexdhex meel sax ugu qabato up or lower marka area waxaa jirto qayb waxaa jirto ee tahay meesha gaarto soo ciyaalku waxa barayay kor marka banooniga u tuurto markuu soo dhawaad meesha gaarto saa u qabato coordination exercise waaye also awareness waaye waxayna la socotaa fahmida ciyaarta banooniga akhrinaysa meeshuu maraayo suu kugu soo socdo shape-ku dhaqaaqiisa wareegiisa shaybabka dhan akhrinaysa soo ciyaalku waxay early semina waxay ahaayeen wax exercise loo throw and catch kor u tuur iyo qabo kor u tuurid qabo hay hadhowna waxa u bedelnay kor u haraanti kick iyo qabasho kadib markaa exercise-daas sameynay ciyaar waxaa sameynay oo jaceylka banooniga ka mid ah oo ciyaalka tuso jaceylka banooniga ii qabtaa lahaa ayagoo meel joogo ayagoo point A jooga ayaa aniga inta ii yimaadeen banoonigayga iga riixinay carareen aniga waa daba cararaya ayagoo banoonigooda wato so exercise-ka sameeyna waxa driving the ball moving with the ball dhaqdhaqaaqida adigoo banooni lugaha kugu dhex jiro so ciyaartu waxay ahayd ii qabta anagu bixinay sababta ii qabta ugu bixinay waa daba cararaa fan aa soo geliyaa smile aa soo geliyaa jaceylka banooniga ku abuuraa so waa ciyaar jaceylka banooniga leh taas markii laga soo gudbo game ku dhameynay game-ka dameer kastaba kaaradu cunaa so tartankii waxay baranayeen waxa waay wax ugu dambeeyay ka faa'iideystaan inay helaan oo fan ah game-ku wuxuu ku fiican yahay waalidiinta geeska joogo hadlaayo la qaybsanayo u sabcinayo soo jaceylka banoonigu dhalinaya markuu waalidku ku daba taagay meel foga gaaray dunida qof kasta og waalid markuusan ku daba taagnayn Allah ku sahlo soo waxa meesha sameynayna waxay ahayd waalidka supportkiisa jaceylka banooniga abuureynay iyo dhaqdhaqaaqa jirkooda barashada jirkooda sameynay soo ciyaalka arkayseen maanta da'doodu waxay ka yartaa 5 jir ka ugu weyn 4 bar waaye xanaanad waaye sanadii bar ilaa 2 sano ooga hartay intaysan banooni tagin waxa arkayseen is the really starting age of the game -2 game-ka da'da lagu bilaabo oo 2 sano laga jara arkayseen maanta aad u mahadsantiin insha Allah kuwa kale soo socda
mase birq iskuulkan si fiican ayaa loo socotaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hayaan waqooyiga magaalada London qaabka u shaqeeyo iyo sidoo ku bilowday macallimiinta bal wax iga sheeg runtii iskuulkan oo FFS ka waa family football marka family-ga waxa aad iyo aad loogu wadaaminaysa oo footballka ah waa barnaamij muddo dheer la sugayo runtii aad baan loogu baahnaa oo anaga xataa muddo badan waxaan aad iyo aad u xayeysiinay in la helo local club waliba kan waa Soomaali oo ah ilmaha markay yihiin 7 sano iyo 6 sano jiraan in la geeyo local club oo Bruno ugu soo bilaabo waxaa arkaysaa hadda ilmo yar ku bilaabay igad 4 sano 5 sano ilaa wax ka weyn waa wax loo baahnaa runtii wiilashan waxa ay qabanayaan waliba macalinka Mansuur waa nin aad iyo aad dadaal badan oo macallin Mansuur aad iyo aad loogu yaqaano dhinacan westiga iyo nolodka dhan aad loogu yaqaano runtii oo dadaal badan oo ilmahan aad ugu fiican inkastoo hadeertan oo Toronto u socdo Canada u socdo oo runtii dadaalkii inta uu ku wadana xagga uu ka sii wada doono aad ma maleyn kartid shaqada uu qabto Cabdikariin waa nin asal la shaqeeyo assistant oo runtii asal meesha la wareegi doono waa Cabdikariin waa nin talanti ah oo aad ugu fiican inuu ilmaha ciyaarsiyo footballka marka kalaabkan waa kalaab yar oo local ah oo dadka ay u baahan yihiin Soomaalida waliba dhalinyarada yarka ah oo Soomaaliyeed in la geeyo marka runtii aad aan u faraxsanahay in kalaabkan la furo oo waxay aad waliba muddo dheer ka hor in la sameeyo ay waan dadaalkuna waa u fiican yahay daawadayaal waxa maalinta axadda ah insha Allah magaalada Stockholm ee caasimadda wadanka Sweden ka bilaaban doona ciyaarihii sanadlaha ee suuqii 2013 waxay bilaabanayaan axadda 23 June ilaa iyo 7 bisha Luulyo ciyaarahan waxaa ka soo qayb gali doona kooxo aad u fara badan oo ka kala socda wadanka Sweden iyo wadamada la jaarka ah iminka waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira isagoo ku sugan caasimadda wadanka Sweden Stockholm Mr. Weli Maalin oo ka tirsan maamulka sare ee Suuki Weli markuu ugu horeysa ku soo dhawo Universal TV bal waxay nooga sheeg qaabka isdiyaarinta Suuki 2013 بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا عبد الناصر يا مدحة برنامج عيارها يونيفرسال مستبرق هذه جابت هذا أوصل نقضه سنة كانوا وسنة قبل كل سنة حتى كان عيارية حاجة سوكي قبل السؤال هي ودرس مدة سنة أي قاطع وحنا فيلين أين نقدر مد حيصل له وعيارتوي كسوق قشنا حسين يوناك لكل مدونان شقوين كي بدنا نسوق نتيجة اللي إيمان دون عدي على إدمه weli sanadkan kooxaha ka soo qayb galaya aad ay u adeegeen waxaan la yiraahdaa sanadba sanadka ka dambaysa ciyaaraha way si adkaanayaan bal arinka waxay nooga sheeg waa runtii ciyaarihii waa ciyaaro soo adkaanayo sanadba sanad ka dambeeyo waxaan ugu wacan dhalinyaradii qurbaha ku nooleed oo aad u badan iyo kooxo badan oo dalab soo gudbiyay inay ka qayb galaan oo rabaan haddii kulli dhimaan wada imaan waayaan waxaa dhacda in kooxaha ay soo adkeeyaan iyagoo adag halka yimaadaan marka waa arrin kalifaysa in dhalinyaradii ay badatay natiijadan ciyaarahan ay adkaanayso koox walba ay rabto in natiijo fiican ka gaarto oo magaceeda meesha siitu laga xuso إن شاء الله dhalinyaro aad u fara badan iyo marti sharaf ayaa iman doona in sha Allah wixii ka bilowda asbuucan mand caawa isniin berri oo talaada wixii ka bilowda waa lagu soo ururi doona in sha Allah magaalada Stockholm marka soo dhaweynta iyo dejinta iyo maxaa loogu talagalay maamulka sare ee Suuki marti sharafta hadii goor iyo ciyaartooyda ka qayb galaya gacmo fur in lagu soo dhaweeyo waa muhiim isla markaasna marti sharaftana waa baxweyn sportska ahayd oo isku jira raggii hore raggii dhexe raggii dambe noocyo badan kala duwan rag iyo dumarba oo waxay kasoo qayb gali doonaan ciyaaraha sidii ugu talagalkeena ugu talagalna si fiican inaan gacmo fur kusoo dhaweyno laakiin waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa dhalinyarada imaanayso in la socdaan micnaha sharciga in la dhooro waa muhiim sharafta ayaa ku jirto oo shacbiga Soomaaliyeed waxa ku jirta sharaftooda ay kaga qayb galayaan ciyaaraha iyaga oo wanaag fiican kala kulmaya kooxda la dheelayaan guddiga qabanqaabada iyo dadweynaha marka waa in sharciga la dhowraa maadaama wadan kasta sharci gaar ah uu leeyahay marabna dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhibaato la gudboonaatay ama dhibaato keensaday in aan goobjoog ka naqano waa maasanta ugu dambeyntii sanadkan waxaa ka qayb galaysa 6 kooxood oo ka socota wadankeena Sweden 3 kooxood oo Ingiriis ah 2 Danish ah 1 Hollandees ah iyo 1 Norway ah waxaan lagu furayaa saan la socono ciyaartii kooxdii haysatay koobka oo ah qaran oo ka tirsan wadanka Sweden iyo Olympic Denmark marka idinka dhanka haddii aad ka baxdid oo maaragtay Suuki idinka tifoosa ahaan yaa isleedihiin ma qaran koobka ma ceshan doontaa mise waxaa la arki doonaa in wadanka Ingiriiska ama Denmark ama Holland ku laabto
والله waa su'aal fiican dabcan lama saadaalin karo dabcan kooxaha ka qayb galaya ciyaaraha nasiib meesha kama maqno laakiin kooxaha ingiriiska yimaada laftooda ma aan kooxa oo tabar yar hadii la fiiriyo waa kooxa aad u adag daabshiil oo kale waxaa jirta oo koox weyn ah oo hadii goor ciyaar fiican soo bandhigto oo iyada la filayo inay koobka qaado ayaa markasta semifinaalka ku hartaayo oo doorashada xorta ama rigoolayaasha ku hartaa marka waa un hadii goor waxaa la saadaalin karaa marka laga gudbo wareegga koowaad laakiin waxaan rajaynaynaa koox walba oo qaado in loogu hambaliyeeyo si laga guuleysana u hambaliyeyso kooxda koobka qaado aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Mr. Willy Malin oo ka tirsan maamulka sare ee Suki oo qadka telefoonka aan ku wareystay isagoo ku sugan caasimadda waddanka Sweden ee Stockholm. Willy aad ayaan kugu mahadcelinayaa aniga Mr. Berg insha Allah waxaan oo balanaa Ilaahay haduu yiraahdo maalinta Sabtida ay soo socota. mahadsanid Cabdinaasir gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa waxaana inoo balanaa maalinta Sabtida oo magaalada Stockholm hadii aan lidmo. Insha Allah. Mr. Berg Suki waxaa la yiraahdaa san Cabdiweli aan ku weydiiyay sanad ka dambeeyay Sweedka kanaysa maxaa keenay arintaas Suki runtii waa hooyadii kubadda cagta marka loo fiiriyo Europe maalintii waxaan xasuustaa oo arintan la sameeyay in ciyaaraha inta lagu qabtaan oday adeer Nuur Xuseen Ilaahay u naxariisto oo aad iyo aad ayaa dadkii soo jeediyay in arintaas ay dhacdo ayaa kamid ah runtii fikrad aad u fiican London lagu qabtay waxaa la yiri inta lagu qabtaa ciyaaraha Europe hooyadii isboortiga waxaa loo doortay inay noqoto Sweden ilaa hadda Cabdinaasir waa la qaadi lahayd waxaad u garan kartaa Sweden inta koox imaad sanad kasta ciyaaraha lagu qabto iyo sidii u fiican yihiin ciyaaraha iyo adduunyada sanad kale waxaan xasuusnaa in kooxo fara badan oo Australia ay kasoo qayb gashay ay meesha yimaadeen marka runtii waa garan kartaa Sweden hooyadii inay tahay kubadda cagta oo Yurub oo dhan marka la fiiriyo garoonka dadka imaanayo dadka soo qayb galayo waad yaabaysaa magaaladan kaligeed inta qof oo ka bixaysa waa yaabaysaa marka runtii Sweden ciyaarahaas kubadda cagta waliba aad iyo aad maartay ay magac iyo sharaf ay ku leeyihiin qaabkay u shaqeeyaan maamulkoodana waa qaab dimuqraasiya sababtoo ah sanad walba waxaa dhacda in la keeno gudoomiye cusub la keeno oo la sameeyo sanadkan waxaa laga dhigay runtii nin aan asxaab aan nahay oo dhalinyaro ah oo runtii aad loola dhacay Faisal Faarax Makaraan oo meel walba laga yaqaan sporti ka dhacbal iga waran Faisal waa runtii waa aad iyo aad waa sanad kasta sharcigooda wuxuu yahay constitution sameysteen waa in dastuurkooda wuxuu yahay qofka inuu hal sano ka badan uusan qaban karin xilka Sheikh Mukhtaar soo maray Xiire soo maray waxaa soo maray Cabdicasiis soo maray dad fara badan soo mareen Faisal Makaraan runtii weli maalin Faisal waa nin dhalinyaro ah runtii oo aad iyo aad ugu fiican isdhexgalka iyo bulshada iyo runtii aad iyo aad sukeeyada dadka oo kale iyo ciyaar badan ka qayb galo waxaan xasuustaa ciyaarihii Olympic-da anaga baan ka qayb galnay runtii waa u yimid oo ka qayb galay waxa uu ka qayb galay markaan joogno kale Finland waa u yimid oo ka qayb galay ciyaaraha inta lagu qabto waa uu ka qayb galaa runtii waa nin aad iyo aad dadka u dhex jiro oo runtii dadaal badan oo dhinaca sportiga waliba runtii maaragtay aan dhihi karo nin ku dayasho mudan waa runtii aad iyo aad dadaalkiisa aad u fiican yahay dhanka miidiyaha anaga kulay tifooso ma noqon karno taageero ma noqon karno sababtoo dhexdhexaad waa inaan ahaana laakiin markaan banaanka joogno anaga waxaa darisna la University TV kooxdooda Nabadda FC oo uu wato macallin Cabdifataax Shanweyne oo aan tifooso u nahay marka anaga chance keena hadaan dhinacan aan nahay ka waran adigana waxaa rabaa inay sheegtid kooxda runtii waa jirtaa in anaga dhexdhexaadna ciyaaraha dhexdhexaad aan ka nahay laakiin koox waa taageeri kartaa anaga koox waa taageeri karaa aniga runtii kooxda aad taageertay Nabadda kale ani runtii aan ma taageersanay koox kale oo Wembley jirto xaafadeyda ah kooxaas aan taageersanahay kulliba oo sanadkan tagayay Sweden إن شاء الله هذا ما صنتها إن شاء الله داود يال يونيفرسيتي تي في دنك فقدات عيارة وحقوق قلي وفدي أدو بلارن وسوق جرس وصاريال كاميرمان إديتر وهجامين يوم مدح سبورت يونيفرسيتي تي في عبد القادر محمد فرح وكدولي دونا جرونك هيترو مجال لندن إسلامر كانت تيجي دونا إلى عيارة كسعودان مجال ستوكهولم عرقة ودنك سويدن dawadayaal maalintii axadda waxaa ka dhacay shir aad u weyn waqooyiga magaalada London shirkaasi oo isugu yimaadeen kooxda sportiga ee Somali Week iyo SSA UK oo la yiraahdo kooxda Serie A ama barnaamij ka soo ciyaari jiray wadanka Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in ay dib u habeen aad u weyn ku sameeyaan qaabka loo maamulo sportiga Soomaaliya wadanka gudihiisa iyo dibadiisa isla markaana waxay ballan qaadeen sanadkan waqtiga lagu jiro bisha barakeysan Ramadaan inay ku qaban doonaan koob xaafadda waqooyiga magaalada London wixii ka soo baxa koobkaas iyo qaabka ay u sameeyeen insha Allah waxa ka daawan doontaan TV-ga caalamiga ah ee Universal
ugu dambeyntii kooxda weyn ee elman ee ka dhisan caasimadda waddanka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxay u duuleen waddanka Suudaan magaalada Darfur ama gobolka Darfur la yiraahdo si ay u qayb galaan ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika waxa wata oo maamulka dhankiisa ah shakhsi aad looga jecel yahay ciyaaraha waddanka Soomaaliya ee dibadiisa Cabdilqaadir Badardiid ayaa la yiraahdaa marka ciyaarta ugu horeysa waxay la ciyaari doonaan koox ka socota waddanka Burundi oo la yiraahdo APR la yiraahdo marka waxaan leenahay hambali ayaan leenahay elman dhammaan maamulka ciyaaryahanada iyo qof walba oo taageera kooxdan weyn ee elman iyagoo la ciyaari doona ciyaartooda ugu horeysa hore idinku sheegay APR oo ka dhisan waddanka Burundi مسبرق بدر ديد يو إلمان وحكم إذا أصحاب سبورت في ذلك جوديه سيد بدي سعيارهن APR إلى عيار دونان كوحدة بروندي دارفور كده دونا بريق برتما أفريقيا بل إيش شكل runtii bariga bartamaha afrika markii halkan markii ma aha ilman markii ka qayb galaysa runtii ilman waa naadiga kaliya ee Soomaaliya runtii anaga nafteena aad u taageeri jirnay oo taageersanahay ilaa hadeertan Cabdilqaadir Jaamac waa Badar Diid waa nin aad iyo aad maaragtay ciyaaraha ugu fiican oo runtii gudoomiyaha ilman haddana ah oo wax badan soo qabtay isboortiga Soomaaliyeed wax badan u soo qabtay ciyaarahan ilman markaa fiiriso marar badan inaan tagay xitaa Kampala qaranka xitaa waa xusuustaa 98 ciyaartooyda u badan difaaca ciyaaraysa waxay badnaayeen ilman marka ilman runtii waxa laga yaabaa kooxdan hadda Burundi ee AFB in ciyaarayso inay guul fiican ay ka keento ayay u badan tahay runtii ilman waana diyaarsan tahay macallimiin fiican oo ay haystaan marka runtii waxaan rajaynaynaa Cabdilqaadir hadii ilaahay insha Allah ay kooxdiisa ilman inay guul weyn oo Soomaali ee guul weyn inay ka keenaan halkaas hadii ilaahay insha Allah aad iyo aad ma santahay مسبرق barnaamijkeeni qaaska ahaa oo aan kaga hadalnay iskuulka sportiga ee ka dhisan waqooyiga magaalada London Elman Serie A iyo suuqi halkaas ayaan kaga baxayna waxa soo qoray Jibriil Maxamed Jibriil cameraman iyo editor maanta waxay kala ahaayeen Rashka iyo Cabdiqani Maxamuud Ba anigoo ah Cabdinaas Ismaaciil inta aan kulmi doono magaalada Stockholm ilaahay haduu yiraahdo sabtida waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.